Bataliil Caalin Guuleed ayaa soo gaaray jaamacadda Green Hope qaybteeda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waana aabaha dhalay Fartuun Tahliil Caalin Guuleed jaamacaddan ayuu soo gaaray waxaana ku soo dhaweeyay maamulaha sare ee jaamacadda Green Hope qaybteeda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan soo dhaweeyay kadib maamulaha jaamacadda Green Hope Macallin Daahir Cabdiweli Axmed ayaa sharaxaad kooban jaamacadda ka siiyay Bataliil Caalin Guuleed aabaha dhalay gabadha kaalinta afraad ka gashay imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare haddaba ha noqotee jaamacaddu waxay balan qaaday manhajiyad bilaash ah sida waxbarashada u noqoto ilaa ay dhamaashashada waxbarashada ee jaamacadda ha noqotee dalka iyo dibadiisa maanta waxaan xafiiska ku qaabilnay waalidkii dhalay ardayda kaalinta koobaad u gashay Hirshabeelle si guudna kaalinta afraad ka gashay imtixaanka dawladda سنة دكتوركان لبضو كن لاتن يو أفر لبضو كن لاتيشن مركو بعد وحنا هنبلي لنا فرتون وحد ذا شيء وحد قارتي قول ويد وحنقول هاي دد بدنا أساق هذا على ترتنتي ونكفر أحسن هاي إنها فرتون ما أنت دذلك هذه كاميرا دلسي وأسوق قارتي هير كانت كواد وقشو استيت كان هيرشفيل هذا نكفر أحسن هاي وأنا قوة هنبليانينا مركزتنا وحارجيننا إن شاء الله اللي هي دونا أرضي بدن oo dadaalkaada iyo meesha aad gaartay meel ka sareysa gaari doon insha Allah kuwaas oo ilaalinaya magaca iyo sunnada maamul goboleedkan mar labaad waxaan dhiirigelinayaa oo u hambalyeeynaa waalidkii dhalay gabadhaas oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiyay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambaliyo ka maamul ahaan maadaama Fartuun ay soo dhameysay heerkii secondary-ga haddana u diyaar garoobaysa inay soo gaarto heer jaamacadeed waxaan u ballan qaadaynaa inaan siin doono waxbarasho free ah scholarship oo waliba full scholarship ah jaamacadda Green Hope kulliyad walba kulliyadii ay rabto inay gabadhaas ay ka barato inay ku heli doonto qaab full scholarship hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah haddii rabto jaamacadda qaybtan Beledweyne inay ka dhigato haddii rabto inay Xamar ka dhigato haddii rabto gobolada kale ee jaamacadda ku taalo waxaan u ballan qaadaynaa inaan waxbarasho full ah siin doono oo dhameystiran mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u hambalyeeynaa waalidkii dhalay oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiyay in maanta sharafka gobolkan ay ilaaliso Fartuun Bataliil Caalin Guuleed ayaa u mahad celiyay maamulka macallimiinta jaamacadda Green Hope isagoona hoos ka xariiqay soo dhaweynta sare ee uu sameeyay jaamacadda waxa maanta casuumay aan xafiiskada jooga jaamacadda Green Hope hambalyeeyay iyo farxadda ay la qaybsadeen marka anigana waa ugu mahad celinayaa si wanaagsan oo waxbarashadooda iyo aqoontooda meesha ka jirta ayaan soo indheynay ayagana aad bay faafayeen aad bay ugu qanaceen aad aan ugu mahadceliyay macallimiintii wax soo bartay aad u maasiyihiin oo maalinta kaalintan ay joogtay gabadheeda waxa wax soo baray heerkan ay ku gaartay waa macallimiinta aad aan ugu mahadcelina macallimiinta kalena waxaan rajaynaa dadaalkii macallimiinta hore soo siiyeen mid lamid ah inay siiyaan si ay u soo ilaaliyaan oo kale igu ilaalishaan gabadha manhaj ay soo bandhigeen gabadhaada marka dadka hadda Fartuun kaliya yaqaanaan laakiin waa saddex gabdhood tana kaalinta koowaad Hirshabeelle gashay marka farxadda Hirshabeelle iyo kaalinta afraad ee gashay ay la faraxsiiyeen laakiin saddex gabdhood ayaan laba kaalinta kale ay soo galeen ay kana way soo baaseen insha Allah jaamacadda haddaan aan joogo xafiiskeedana waa Green Hope maanada siisay waxbarasho ama hadii Xamar aan noqoto iyo hadii gobol ay noqoto marka xil kastaba diyaar in wala tahay inay deeqda waxbarasho siiyaan qaar ka mid ah macallimiinta dhigta jaamacadda ayaa hambaliyada farxadeed la qaybsadeen Fartuun Tahliil Caalin Guuleed maanta waxaan halkan u joognaa inaan dareenka farxadeed la qaybsano gabadheena Fartuun Tahliil Caalin oo waalidkeed maanta la joogo uguna hambalyeynayno kaalinta quruxda badneed ee ka soo hoysay imtixaankii standardized ka ahaa ee qaranka ee ummadda Soomaaliyeed ay wax kala dhaxeeyeen gashayna kaalinta koobaad Hirshabeelle oo dhan gashayna kaalinta afraad Soomaaliya oo dhan waa guul qurux badan oo Ilaahay soo hooyay oo ku bogaadinayna waalidkii soo saarayna waa ku dhiirigelinayna inuu ku dadaalo gabadhaas oo si gaar ah xaaladeeda ula socdo ayadana waxaan leenahay hore u soco Allah ku xafido dadaal intaan waxa ku gaartay waa juhdigaaga iyo tala saarashada Allah halka ka sii wadaan leenahay gabadha ardayda ah ee lagu magacaabo Fartuun Tahliil Caalin oo ilaalisay sharafti gobolka iyo kii degmadaba xitaa waxaan dhigi karnaa mid state-ka sidoo kale una gashay kaalinta afraad qaybta kala sareynta 10 arday ugu horeysay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka 12aad waxaan leenahay waxaan had iyo jeer markasta ku dhiirigelinaynaa hambali inaan dhahno oo hambaliyeynaa sidoo kale waxaan hambaliye gaar u direynaa iyo ducaba sidoo kale waalidka soo barbaariyay
waqtigan adagna sidoo kale soo waxbaray kaalinta hadda maanta ay soo gaartana soo gaarsiiyey asna waxaan leenahay insha Allah inuu hore u sii wado dadaalkiisa oo ku sii dadaalo si ay u dhameeyaan lahayd heerka jaamacadda ama heerka sare waxbarashada sidoo kale waxaan halkan hambalyo farxadeed ugu dirayaa walaashay Fartuun Tahliil Caalin oo ka mid ah top 10ka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta Soomaaliya qaasatan ka mid ahayd ardayda gobolkeena kaalinta koowaad u galay gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne waxaa leeyahay hambalyo aad ugu faraxsanahay inaan sanado badan kadib aan ka mid noqono top 10ka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya guul intaas ka badan aan ku rajeynayaa insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo kan mid ah macallimiinta jaamacadda Green Hope waxaa farxadda hambalada la qaybsanaynaa gabadha magaceedu yahay Fartuun Tahliil Caalin Guuleed oo ah ardayda u gashay kaalinta afraad ee wadankeena Soomaaliya kowna ka gashay state-ka Hirshabeelle u gashay kaalinta koowaad waxaan leenahay hambalyo balaaran u direynaa anigoo ku hadlayna magaca waxa weeye jaamacadda Green Hope soo kale waxaa hambalyo leenahay waalidkii soo barbaariyay waqtigaas geliyay ee inay gashay horseeday kaalinta koowaad inay horgasho waxa weeye koo u gasho state-ka Hirshabeelle iyo Soomaaliya kaalinta afraad u gashay ayagana waxay mudan yihiin mahadnaq balaaran soo kale waxaa mahaddaas qayb ka ah iskuulkii kusoo dadaala asigana inay kaalintaas gashay horseeday waxaan leenahay gabadhaas maanta waxa waaye u taagana hambalideeda hambalyo leenahay hambalyo Cabdiqani Cali Quality Taya Media Beledweyne